kana mid ahaa asaasiyaashii ururka al-shabaab oo noqday mas'uulka labaad ee xarakada waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xubinnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido ku qotoma khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Boqol meeshaasna waa lagu weeraray taasoo la rabay in lagu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyay waana iska difaacay tan kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan waxaan caddaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqdo insha Allah tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha Allah tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarta wabillahi tawfiiq